in laga jawaabo weerarkii xanuunka badnaa 14 Oktoobar lagu laayay dad rayida waxba galabsan ayaa u baahan in ciidamada qalabka sida ay si muuqato uga jawaabaan iyadoo uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ahna taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waana ujeedada oo halkan madaxweynuhu u yimid si uu u kormeero xeryaha ciidamada taas oo qayb ka ah in madaxweynuhu uu ciidamadan aad arkaysaan ee maanta ka dhaqaaqaya magaalada Muqdisho una baxaya magaalada banaankeeda oo halkan ku sugootiyay isagoo wata tuutaha ciidanka militariga ee Soomaaliya caanka ay ku yihiin ciidamadan ayaa hordhac u ah guutooyin loogu talagalay inay ka abaalmariyaan al-shabaab duulaanka ay ku soo qaadeen dadka rayidka ee ku nool caasimadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu helinayeen saraakiisha ciidamada militariga nabad sugidda ayaa ka hor inta aysan ciidamadan oo u diyaarsanaa in ay dhaqaaqaan la dardaarmay isagoo kula ballamay in kulankooda xiga ay ku yeeshaan furimaha dagaalka ee dalka looga xoreynayo al-shabaab qoladaas nabadiidka ah ee ummadda Soomaaliyeed u diiday nabadda waxaysan ogeyn oo ay meesha ka bixiyeen ummadda Soomaaliyeed inay leeyihiin geesiyaal idinkoo kala ah inay leeyihiin dad halyeeya ah oo idinkoo kala ah diyaar muutihiin diyaar muutiin aad dhimataan diyaar muutiin aad dhiigin u bixisaan waxaan idiin sheegayaa aniga ugu horeeya waxaan diyaar ugu ahay inaan idinkugu imaado aagaga dagaalka oo aan nafteyda u bixiyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed qof walbana diyaar wuxuu yahay maanta inay u soo baxaan oo ay dhiigooda iyo naftooda u bixiyaan difaaca qarankooda Soomaaliyeed idinka hormood u ah waxaan kulligan ku wada dhaaranay oo dhaartii Ilaahay u marnay inaan difaacno dalkeena Soomaaliya waxaan dhaar u marnay oo Ilaahay hortiisa ugu dhaaranay inaan difaacno dalkeena Soomaaliya waxaan u dhaaranay inaan difaacno soo diinteena maaha waxaan idiin sheegayaa haddaad dhimataan waxaad tihiin xaquudir mujaahidiin baad tihiin idinka maanta aad baxaysaan insha Allah waxaan idin rajeynayaa guul waxaan idin rajeynayaa guul waxaan idin rajeynayaa guul Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato dawladda Soomaaliya ayaa ballan qaaday inay si adag uga jawaabi doonto dhacdadii ay ku weysay muwaadiniinteeda 14 bishan Ali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka xerada Jazeera